سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا موجية جانال هداد نوغو عصب تاي ولا سبسكرايب كان نغا بغيلين كسو دوادا موضوعينا كمبيوترku waa aalad elektaroonig ah una habaysan inuu qaabilo macluumaad iyo samaynta qoraallo ama xog muhiim ah isla markaasna u samaysan inuu ku kaydiyo meelo kala gaar ah badanaa kombiyuutarku wuxuu xogtaas la wadaagi karaa qalab ama kombiyuutar meel kala yaala iyadoo loo marayo adeegsiga internetka kuwa ugu degdega badan ayaa maanta awood u leh bilyana xog ah in ay keediyaan kana shaqaysiiyaan sikimo aad u yar kombiyuutarka ayaa ku shaqeeya barnaamij loo yaqaan OS ama operating system la'aantiis kombiyuutarku waa caag ama daasad meel taal barnaamijkan ayaa kuu cadeynayo qaabkaad ugu shaqayn lahayd sidoo kale wuxuu boos siiyaa kuwa barnaamijyo ku dhex samaysta kombiyuutarka oo gebigiisba ku salaysan farsamada elektarooniga ayaa waxa uu yaqaanaa oo keliya tirada eber iyo kow oo luqadda ingiriiska lagu yidhaahdo bytes sababta uusan kombiyuutarka u aqoonin waxa aan ahayn eber iyo hal waxaa ugu wacan ku tiirsanaanta uu ku tiirsan yahay korontada si ay qaybaha kala duwan ee kombiyuutarku u wada xiriiraan ayay waxay isku fahmi karaan oo keliya koronto way joogtaa ama ma joogto kowda waxay u dhigantaa koronto waa joogtaa meesha eber u dhiganto koronto ma joogto sidaas darteed ayaa xisaabaadka uu xisaabiyo kombiyuutarku loogu magacaabaa binary math iska kombiyuutarku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah hardware oo ah samayska iyo walxaha uu ka kooban yahay kombiyuutarka iyo software oo ah barnaamijyada uu ku shaqeeyo kombiyuutarka taariikhda kombiyuutarka horumarintiisu waa waxa ilaa hadda socda sidii loo kordhin lahaa xawaarihiisa ama loo yareyn lahaa qaab dhismoodkooda guusha laga gaaray soo saarista kombiyuutarka waxay bilaabatay wixii ka dambeeyey soddomeyadii ilaa afartameyadii qarnigii labaatanaad kombiyuutarada waxaa loo qaybiyaa kombiyuutarada miiska kuwa dhabta kuwa calaancasha iyo kuwa waaweyn oo loo yaqaano super kombiyuutar kombiyuutarada miiska desktop kombiyuutar waa kombiyuutarada ugu badan ee la isticmaalo waxaana loo isticmaalaa xafiisyada dukaamada isbitaallada iyo guryaha kombiyuutarka dhabta laptop waa kuwa loogu talagalay dadka aan shaqada ku qabanin meel joogto ah asxaabay mawduuceena halkaas ayuu noogu egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu